madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo socdaal xal raadin ah ku tagay wadamada khaliijka Carabta ayaa gaaray magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar waxaana dalkaasi lagu soo dhaweeyay si heer sare ah. Erdogan oo horay booqasho ugu tagay wadamada Sacuudiga iyo Kuwait ayaa la soo kulmay madaxda wadamadaasi waxa uuna kala hadlay madaxweynaha sidii loo qaban lahaa xiisada ka taagan khaliijka gaar ahaan tan u dhaxaysa xulufada Sacuudiga iyo Qatar. madaxweynaha dalka Turkiga ayaa markii uu gaaray magaalada Doha waxa uu kulan gaar ah la qaatay amiirka Qatar Tamim bin Hamad Al Thani waxa ayna labada mas'uul ka wada hadleen xiisada khaliijka iyo sida ugu macquulsan ee loo xallin karo xiisada weli taagan. dowladda Turkiga ayaa dadaal badan ugu jirta sidii loo qaboojin lahaa xalna loogu gaari lahaa xiisada ka aloosan wadamada khaliijka waxaana madaxweyne Erdogan uu jeedkiisu yahay inuu dhexdhexaadiyo wadamada xiisada u dhaxayso. Turkiga ayaa xiriir ganacsi oo aad u weyn la leh wadamada khaliijka gaar ahaan wadamada hadda xiisada u dhaxayso. waxaa sidoo kale Turkiga saldhig military ku leeyahay dalka Qatar oo hadda wadamo Carbeed ku soo rogeen xayiraad xagga cirka dhulka iyo badda ah.